aroornimadii hore ee saaka waxa dab ka kacay guri ku yaala agagaarka garoonka kubadda cagta Alamsey ee magaalada Burco walow aan loo xaqiijin sababta dabkaasi kicisay ma jirin wax khasaare nafeed oo goobtaasi ka dhacay marka laga reebo khasaare hantiyeed oo soo gaadhay dhismihii gurigaasi iyo alaabtii hoos taallay dabkan oo ahaa dab ballaaran ayaa waxa lagu guuleystay ugu dambeyntii in la damiyo muddo saacada kadib waxaana goobtaasi oo aanu gaadhnay indhahayagu qabanayeen qaabka ay bulshadu dadaalka ugu jirto baqtinta dabkaasi oo ay gacmahooda ugu gurmanayeen shacabku waxaana taa barbar socotay dadaal ay ka galeen ciidamada dabdamisku baqtinta dabkaasi iyagoo gurmad ballaaran ka sameeyay daminta iyo badbaadinta gurigaasi haddaba ku xigeenka taliyaha ciidamada dabdamiska ee gobolka Togdheer mudane Khadar Cabdiraxmaan Ibraahin oo aan wax ka weydiiyay qaabka dabkaasi ahaa iyo sida ay ugu guuleysteen inaanu dabkaasi sii fidin ayaa waxa uu sheegay inuu dabkaasi ahaa kii ugu ballaadhnaa ay howlgal ugu soo baxaan tan iyo intii ay sida tooska uga howlgaleen magaalada Burco waxaana uu bulshada u soo jeediyay inay ciidamada la shaqeeyaan si loogu guuleysto yareynta khasaaraha dabka ee magaalada Burco ka dhaca isagoo leena la soo sheegay wixii gubay ama sababtii dhalsana ciidamay baadhin la kisto alxamdulillah waan ku guuleysanay saqafkii sare oo dhan baa ka gubtay guriga laakiin gudihii hoos oo dhan uu guriga u bad qabaa wixii alaabta halay qolalka qaar way gubteen oo uu dabku ku soo horeeyay laakiin qolalka qaarna way bad qabaan oo wax dab imu gaadhin alxamdulillah dabka waan ku guuleysanay waanu dhamaaday gurigaas uu bad qabaa imka maadaama idinku gudaha u gasheen wax khasaare maal mooyaan wax naf oo wax ku noqotay haba yaraatee ma jirto khasaare maal oo aan badnayn ayaa guriga ku gubtay boqolkiiba 50 gurigaasi oo saf gareynay boqolkiiba 50 uu gubtay boqolkiiba 50 wixii maaliyaha inta taalo badbaaday alxamdulillah ilaahayna waa nagu guuleeyay imika gurigu uu bad qaba dadkii lahaana oo ku wareejinay ciidamada biliska maadaama muddo badan baqtinaysaan saacada ah qaadatay meel la oran karin dabkan oo dabkii ugu ballaadhnaa intii ciidamada dabdamiska gobolka Togdheer si toos ah uga howlgalan ay qabtaan طبعا ها maanta markaan galno dabkan aan imika ka soo baxnay iyo intii hore aan Burco gobolka Togdheer joognay waa dabkii ugu ballaadhnaa ee aan muddada ugu badan ugu qaatay maadaama waa dabkii kaliya gaadhay guriga gabigiisaba ruufkiisa sare oo dhan saqafka sare oo dhan gurigani dabkiisu gaadhay hore waxa u dhici jirtay inaanu qayb guriga ka gubtay ama dhinac aanu ka gaari jirnay laakiin gabi ahaanba guriga ruufku ka gubtay saqafka sare u gubtay sababta waqtiga badan oo inuu ugu qaato keentay sidaasi si lamid ah ciidamada booliiska ayaa iyaguna dadaal ka galay sidii loo baqtin lahaa dabkaasi iyo ammaanka goobtaasi maxamed mataan gabalaax maxamed mooto Ariel TV magaalada Burco.